murtida maanta. qofkii isha dabana aadanaha arka, kii uurka dabana ilaahay baa arka. hawraarta murtideenna maanta dulucdeedu waa qodo dheer tahay oo waxaa ku xabaalan ulajeedo weyn. ilaahay waa arkaa qofka ama il haddabo ama uur haddabe, ee waxaa loo leeyahay kii isha daba aadanaha arka. awoodda aadanaha waxay ku soo kooban tahay inay aragto waxa xibnaha muuqda dareemahayaan oo ayan arkin xibnaha qarsoon dareenkooda. haddii qofku dhagarow yahay oo uu la bareerahayo dhagartiisa, waa layska qabanayaa, oo hadduu qof keliya dhagrahayana waa uu iska ilaalinaya. haddii uu koox dhagrahayana waa layska dhicinaya. ninna ma uu degi karo marka uu dhagartiisa la bareero oo ay caadiyaal iska tahay. sidoo kale haddii uu yahay qof kibir badan oo dadka ku gardaraysanahaya xooggiisa ama maalkiisa, waa loo jeedaayo waa layska dhicinaya, waxbana meel ma gaarsiin karo. halkaasna waxaanu ka garanaynaa qofku marka uu la bareerayo waxa uu dadka ku samaynayo oo khayaano iyo xumaana in la og yahay oo la iska ilaalin karayo oo loo tooghayo. waxaase balaayo ah sida murtidu na tusayso oo dadka dhib weyni ka soo gaarayaa qofka dhagartiisa qarsoodi ku samaynaya oo dadka khayaano u qarinaya ayagoon u jeedinna waxyeello ku samaynaya. uurka dabidduna waa middaasoo kale, oo qofka marka aan loo jeedin waxa uu samaynayo ayaa murtidu ku sheegaysaa uur dabid. dhibaato weyn baana ka soo gaarta dadka. waxaase la og yahay oo la isku hallaynayaa in ilaahay qofkaa la jiro oo la raaciyey waxa uu samaynayo, ilaahayna uu ku fiirinayo waxa uu dadka ku keenahayo oo dhibaatooyin iyo khayaano ah. qofkii ilaahay la raacshayna meel cidlo ah ma joogo oo dantiisa ku maamulan mahayee waa la weheliyaa. murtideenna maantuna waxa ay noo tilmaamaysaa dadka khayaanada uu samaynayo inay u qaybsanto laba qaybood. qayb la arki karo marka la samaynayo oo dadku ka gaashaaman karo, iyo qayb qarsoon oo si dhagar ah dadka ugu imanaysa. qofku marka uu dadka u waxyeeleeyo si qarsoon oo uu khayaano u gaarsiiyo, waxaa la og yahay inuusan meel ku gaaraynin oo ilaahay soo muujinayo. haddiise ayba dhacdo inuu ka baxsado oo aan la ogaaninna, inta uu adduunyada ku nool yahay waxa ilaahay ka abaal marinayaa oo ku cadaabayaa maalin aakhiro. murtideenna maanta ee ah qofkii isha dabana aadanaha arka, kii uurka dabana ilaahay baa arka. waxa ayna tusaalaynaysaa sida la doonayo in la isaga jiro khayaanada qarsoon iyo midda bareerka ah labadaba, si loo nabadgeliyo dadka bani aadamka ah oo kula dhashay oo walaalaha ah wixii ay xaq kugu leeyihiin, ilaahayna loola tago dembi la'aan iyo adigoo ceebka saliin ah habeen aakhiro.